hooyo naftaada daryeel. Maanta waxaan rabaa inaan ila wadaago tip yar oo ku saabsan daryeelka naftaada aad daryeesha haddaad tahay hooyo. Magacayga waa Raxmo Xuseen. Waay sabab muhiim maxay u tahay inaad naftaada daryeesho? Caruurtana maxay faa'iido u leedahay? Caruurtu waxay faa'iido u leedahay naftaada markaad daryeesho. Waxay ogaanayaan naftooda inay muhiim tahay. Adigana maxay faa'iido ku tahay? Waxaad yeelanaysaa dulqaad caruurta isku koriso. Ilaa naftaada marka hore soo daryeesho sooma? Kadib maxaa dhacayo? Waxaa kaloo dhacayo markaad naftaada daryeesho. Waxaa ka dhacaya qaylada badan, waxaa ka dhacaya stresska badan, waxaa ka dhacaya dulqaad yarida badan. Markaas maxaa korinaysaa caruur isku kalsoon. Adiga iyo caruurtaadana waxaa idinka dhaxaynaya isfaham weyn aa idinka dhaxmaraa insha Allah waana si fiican ku dhageysan doonaan haddii Alla idmo. Naftaada markaad daryeesho marka su'aasha waxaa weeye maxaa nafteeda ku daryeeli karaa? Waxyaabo badan aad naftaada ku daryeeli kartaa. Laakiin waxa ugu yar oo mar walba aad heli karto waxaa weeye 10 daqiiqo Allah ka dhigo. 12 daqiiqo Allah ka dhigo inta caruurta ka soo horkacdid oo wax wanaagsan aad jeceshahay aad cabtid ama aad cuntid whatever aad samaysid relax garay deep waxa samaysaa neefta hore gadaal u celi hore u soo bix kadib waxaa xisaabtantaa shalay maxaa qaldoomay maxaa qabsaday maxaa iga qaldoomay maantana jadwalkayga muxuu yahay maxaa qabsanaa marka saas yeesho maxaa kugu dhacayo jadwal oo ku socotaa leedahay caruurtina sidii ku koraysaa waxaad ka fikiraysaa caafimaadkaada waxaad ka fikiraysaa waxaad cunayso waxaad ka fikiraysaa jirkaada waxaad ka fikiraysaa maskaxdaada taasoo caruurtaadana iidana u noqonayso ku dadayasho wanaagsan marka hooyooyin waa daalantiin waa ogahay insha Allah naftiina wax walba ka hormariyo. Assalaamu calaykum.